dhammaan suuqyada magaalada Muqdisho ayaa furan marka laga reebo qaybo yar oo ku yaala suuqa Bakaara ee Muqdisho laakiin dad badan waxay isweydiinayaan waa maxay sababta keentay in xubno ganacsato ah ay abaabulaan in suuqa la xiro suuqyada waaweyn ee dalka Soomaaliya ku yaala gaar ahaan suuqa ugu weyn Soomaaliya ee Bakaara ayaa badankiis waxa uu furan yahay ganacsatadii si caadi ah u shaqeynaya dhammaan suuqyada kale ee suuq Bacaad suuqa Kaaraan suuqa Madiina iyo kan Xamarweynana si toos ay u wada furan yihiin dhamaantood laakiin waxa jira guddi sheegtay inay yihiin ganacsatada suuqa Bakaaraha ama ganacsatada Soomaaliyeed oo maamulida soo dhaafay abaabul ka wada Muqdisho iyaga oo cadaadis saaraya dawladda Soomaaliya balse ganacsatada rugta ganacsiga Soomaaliyeed iyo qaybaha kale ee suuqyada Muqdisho waxay sheegeen in si toos ah ganacsigooda u furan yahay wax lacag ah oo cusub oo dawladdu soo kordhisay aysan jirin nidaamkan cusub oo ay hay'adaha ammaanku wadaan ee laga cabanayana xafiis gaar ah loo sameeyay oo hubin ah lacag lagu qaadan aysan jirin nin sheegtay inuu yahay gudoomiyaha suuqa Bakaaraha ee ganacsatada Soomaaliyeed laakiin aan ogaano inuu san ahayn xilkaasi ayaa sheegay in ganacsadii suuqyada magaalada Muqdisho oo dhan ganacsatadu ka codsanaya inay furaan warkaasina waxa uu noqdo been oo ganacsadii suuqyada Muqdisho ma baxirneen isagana ma ahan gudoomiyaha ganacsatada gobolka Banaadir ma ahan gudoomiyaha ganacsatada suuqa Bakaaraha waa un xubin kamid ah maamulkii hore ee suuqa Bakaaraha waxa lagu magacaabaa Xasan Mire wuxuu sheegtay inuu yahay gudoomiyaha ganacsatada shalayna wuxuu la kulmay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya xubno ka tirsan rugta ganacsiga Soomaaliya iyo warshadaha iyo xubno kale oo kamid ah ganacsatada ugu waaweyn dalka Soomaaliya oo la xiriirnay waxay sheegeen in dhammaan suuqyadii magaalada Muqdisho ay furan yihiin marka laga reebo koox ku xiran ninka sheegtay inuu yahay gudoomiyaha suuqa Bakaaraha in ganacsigoodu ay xirteen gudoomiyaha saxda ah ee suuqa Bakaaraha rugta ganacsiga iyo warshadaha waxay sheegeen inuu yahay nin lagu magacaabo Xasan Xoogsade kaasoo maalmo ka hor shir jaraa'id qabtay sheegay inuu ganacsiga furan yahay dawladana xafiis cabasho ah u sameysay wixii cabasho ay qabaanna halkaas ay ku gudbin doonaan dawladana ay kala hadli doonaan waxa la isweydiinaya maxaa sababay nin aan rugta ganacsiga ka tirsaneen gudoomiyaha ganacsatada gobolka Banaadir ahayn gudoomiyaha ganacsatada suuqa Bakaaraha aan ahayn inuu abaabulo ganacsatadii gaaraan kuwa isaga ka agdhawaa suuqii qaybo kamida uu xiro haddana warbaahinta u sheego in ganacsiga magaalada Muqdisho oo dhan uu xiran yahay iyadoo aysan xirneen marka laga reebo kuwa isaga taabacsan ee qaybo kamida Bakaaraha xirtay afar meelood saddex meel suuqa Bakaaraha waa furan yahay dhammaan suuqyada kalena ma jirto hal dukaan ama hal goob ganacsi oo xiran lama beeninayo in ganacsatadu cabasho qabaan laakiin waxa been ah in suuqii Bakaaraha iyo suuqyada kale ee dalka Soomaaliya ay xiran yihiin baarisana waxaan ku ogaanay inaysan xirneen dhammaan suuqyada Muqdisho marka laga reebo ninkan gudoomiyaha sheegtay iyo kooxdiisa oo qaybo yar oo kamid ah suuqa Bakaaraha xiran su'aasha la isweydiinta mudane waxay tahay ama dad badan isweydiinayaan maxaa sababay in ganacsatadii iyo dawladdii la iska hor keeno waliba dad aan xil ka haynin rugta ganacsiga iyo warshadaha gudoomiye ganacsatada gobolka Banaadir aan ahayn suuqii Bakaarana aan ahayn uu abaabulo ama ay barnaamijkaas isaga iyo kooxdiisa abaabulaan gudoomiyaha golaha shacabkana uu qaabilo oo warbixin ka dhageysto meediyahana la geliyo qayb kale oo kamid ah guddiga ganacsatadana ay warbaahinta ka sheegayaan inaysan suuqyadii xirin dawladdii u garaawday shaqadeedina ay sii wada doonaan dawlad kastoo adduunka ka jirta waxaa taageera dadkeeda oo lacag ku bixiya laakiin waxay maraan nidaam iyo shuruuc iyadoo ay shuruucdaas ay qasab ku tahay dawladda Soomaaliya inay marto ganacsatada Soomaaliyeedna ay xaq u leeyihiin wixii aan sharci ahayn iyo xeerarka maaliyadda ku qoran inay iska diidaan ayay haddana tahay inay dawladdu garab istaagaan sanadkan dawladda Soomaaliya waxay weyn doontaa malaayiin lacag ah oo kab ah oo heli jirtay oo ay Mareykanka hay'ado ka tirsan ama Mareykanka hay'ado fanka hela ay bixin jireen waxa kamid ah kuwa ay sida daran u saameysay wasaaradda caafimaadka Soomaaliya iyo meelo kale haddii dadka Soomaaliyeed aysan taakulaynin dalkan iyo dawladda ka jirta weligeed Soomaaliya maalin kasta waxay naafo u noqon doontaa dawlado shisheeye deeq dibadda ay heli jirtay iyo sidoo kale hay'ado ajnabi ah mashaariic ay magaca Soomaaliya ku soo qaataan dabadeedna meel qaldan laga bixiyo dawladdu waxa waajib ka saaran yahay inay daryeesho ganacsatadii dadka canshuur bixiyaasha ah iyo shacabka Soomaaliyeed iyadoo shacabkana ay mas'uuliyad ka saaran tahay in dawladdu ay maal gashadaan oo ay dhisaan si Soomaaliya maanta halka ay joogto hore uga dhaqaaqdo aragtidaada qaybta safaalada noo reeb muuqaalkan si shargaray aad iyo aad u mahadsantahay walaalayaal sida aad u jeedaanba maanta waxaan taaganahay bartamaha suuqa Bakaaraha waxa aynu ku soo booqday halkan oo aan soo ajiibnay
dhibaatadii suuqa ka dhacday oo ahayd suuqu inuu xirmo cabashooyin dadka xoogaa ay tatabanayeen dowladda ayaa naga codsatay oo noo timid suuqa in la furo waxay dowladdu naga codsatay in suuqa la furo kabacdi wixii cabasho qaba oo war qaba oo cabasho qaba in ay yimaadaan degmada howlwadaag guddoomiyaha degmada ayaa halkaa kula hadli doona guddoomiyahan soo ajiibnay suuqu waa furan yahay waa la furay dadkana wixii waxqaba iyo wixii xaaje ah in lagula xaajoodo degmada howlwadaag oo guddoomiye bashiir guddoomiyaha degmada howlwadaag ay arrintaa cabashada kala xaajoodaan ayaan ku ballannay guddoomiyaha degmada innagoo ah rugti ganacsiga iyo warshadaha soomaaliyeed iyo rugaha ganacsiga kale oo ka sii hooseeya waxaan codsanaynaa suuqa inuu furnaado oo suuqa aan la xirin oo wixii cabasho ah ama wixii la qabo oo dadku cabasho ay qabaan inay degmada tagaan guddoomiyaha degmada wadahadal lagu yeelan doonaa halkaas asagaana xallin doona dowladduna asagay arrinta u soo xil saartay intaasaan suuqa u nimid suuqa asagoo furan ayaan xaajoonaynaa wixii cabashaa dowladdeennan u sheegaynaynaa iyo degmada aadaad u mahadsan tihiin waxaan codbeer idinku leenahay suuqa ha xidhiinnina wadaxaajood aan galno wixiina dhibaya aan wadahadalka galno sidaasaan ku balnanay guddoomiyaha degmada iyo gobolka banaadir iyo dowladdii oo ka sii dambayda walaalayaal sida aad u jeeddaanba maanta waxaan taagannahay bartamaha suuqa bakaaraha waxaa ina ku soo booqday halkan oo aan soo ajiibnay dhibaatadii suuqa ka dhacday oo ahayd suuqu inuu xirmo cabashooyin dadka xoogaa ay tatabanayeen dowladda ayaa naga codsatay oo noo timid suuqa in la furo waxay dowladdu naga codsatay in suuqa la furo kabacdi wixii cabasho qaba oo war qaba oo cabasho qaba in ay yimaadaan degmada howlwadaag guddoomiyaha degmada ayaa halkaa kula hadli doona guddoomiyahan soo ajiibnay suuqu waa furan yahay waa la furay dadkana wixii waxqaba iyo wixii xaaje ah in lagula xaajoodo degmada howlwadaag oo guddoomiye bashiir guddoomiyaha degmada howlwadaag ay arrintaa cabashada kala xaajoodaan ayaan ku ballannay guddoomiyaha degmada innagoo ah rugti ganacsiga iyo warshadaha soomaaliyeed iyo rugaha ganacsiga kale oo ka sii hooseeya waxaan codsanaynaa suuqa inuu furnaado oo suuqa aan la xirin oo wixii cabasho ah ama wixii la qabo oo dadku cabasho ay qabaan inay degmada tagaan guddoomiyaha degmada wadahadal lagu yeelan doonaa halkaas asagaana xallin doona dowladduna asagay arrinta u soo xil saartay intaasaan suuqa u nimid suuqa asagoo furan ayaan xaajoonaynaa wixii cabashaa dowladdeennan u sheegaynaynaa iyo degmada aadaad u mahadsan tihiin waxaan codbeer idinku leenahay suuqa ha xidhiinnina wadaxaajood aan galno wixiina dhibaya aan wadahadalka galno sidaasaan ku balnanay guddoomiyaha degmada iyo gobolka banaadir iyo dowladdii oo ka sii dambayda aad iyo aadaad u mahadsantihiin